asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal kooban oo aan ku dulmari doonno maanta xirfadaha ugu wanaagsan aad baran karto sanadkan islamarkaana laga yaabo in aad lacag ka samayso. markaan ku leeyahay laga yaabo waxay ku xiran tahay mid walba qaabka aad u jeceshahay ama aad u jeclaanayso ama waqtiga ugu badan aad ugu bixinayso ama aad ugu qanacsan tahay ayay ku xiran tahay inaad lacag ka samayso. xirfadda ugu horeysa waxa weeyaan bloggingka macnihiisu waxa weeyaan in aad website samaysato islamarkaana websitekaasi aad ku qorto artikalo ama maqaalo qoraal islamarkaana soo jiidasho leh. websitekaasi markaasi waxaad ku xiranaysaa Google AdSense waa barnaamijka Google ee leedahay xayeysiimaha ayaa markaas websitekaada la dul saari doonaa. qof walba websitekaada soo booqda oo artikalada ama maqaalkaasi aqrinayana xayeysiintaasi ayaa loo bandhigi doonaa. mar walba xayeysiin qof loo bandhigana waxaad ka helaysaa lacag. maalintina ugu yaraan waxaad ka samayn kartaa $10 ilaa iyo $60. xirfadda kale saaxiibayaal laga yaabo inaad lacag ka samayso waxa weeyaan multimedia graphic designka, graphic motionka, video editingka iyo waxyaabaha kale la midka ah. graphic designka, graphic motionka, video editingka waxa aad ugu baahan ganacsiyada online-ka wax ku iibiya. mar walba ay rabaan ganacsiyadaasi in ay xayeysiiyaan ganacsigooda waxa laga marmaan inay adeegsadaan graphic design ama video editing si markaasi macaamiil badan ay u helaan. markaasi meheradahaasi ayaad u shaqayn kartaa ama businessyadaasi ayaad muuqaalada u samayn kartaa. sidoo kale multimedia wuxuu kaa caawin doonaa xirfado kale oo aan muuqaalkan qaybihiisa dambe kugula wadaagi doono. xirfadda kale saaxiibayaal aad lacag ka samayn karto waxa weeyaan web designka, inaad barato sida loo sameeyo website-yada. maanta businessyada adduunka ka jira oo dhan kama maarmaan in ay yeeshaan website iyaga u gaara, gaar ahaan businessyada Soomaalida aad uma fahansanaa qodobkan, inkastoo iminka ay aad usoo baranayaan inay samaystaan website iyaga u gaara. marka haddii aad barato xirfaddan, businessyadaasi ayaad website-yo u samayn kartaa. xirfadda kale xigta saaxiibayaal laga yaabo inaad lacag ka samayso waxa weeyaan video creator ama content creator inaad noqoto. waxaad noqon kartaa youtuber, facebooker, tiktoker, islamarkaana waxaad samayn kartaa muuqaalo tayo leh oo soo jiidasho leh, dadkana entertainment ay ka heli karaan ama macluumaad ay ka heli karaan, islamarkaana community ballaaran ayaad ku helaysaa. qaabkaasi markaad communitygaasi yeesho waxaad lacag ka samaynaysaa xayeysiimaha sida Facebook iyo YouTube. xirfadda taa xigta saaxiibayaal ama lacag aad ka samayn karto waxa weeyaan e-commerce macnaheedu waxa weeyaan inaad iibiso alaab adiga aadan haynin. tusaale ahaan alaab ay hayaan Amazon ama ku jirta systemka Amazon ayaad soo qaadaysaa macluumaadkeeda iyo inta lagu iibinayo, kadibna waxaad ku xayeysiinaysaa website adiga ku gaaro adiga aad leedahay, ama waxaad account ka furan kartaa Shopify waxa weeyaan waa system wax lagu iibin karo e-commerce islamarkaana account aad ka furan karto wax ku iibin karto. marka mar walba alaabta aad soo geliso website-kaaga oo aad macaamiil hesho, macaamiilka waxaad ka soo qaadaysaa lacagtii iyo addresskiisa, kadibna waxaad lacagta ula tagaysaa alaabaha dadka hayay sida Amazon oo kale ayaad alaabta ka iibsanaysaa, waxaana siinaysaa addresska macaamiilka adiga aad wax ka soo iibisay. marka aad uma baahnid inaad alaabta u geyso Amazon iyo kuwa kale la midka ayaa u geyn doona alaabta macaamiilka. xirfadda kale saaxiibayaal lacag aad ka samayn karto waxa weeyaan affiliate marketing macnaheedu waxa weeyaan alaab ama service shirkad markaasi ay xayeysiinayso in linkigaada soo qaado oo aad dad badan u bandhigto. mar walba linkigaada markaasi dadka raaca ay wax ka iibsadaan shirkadaasi waxaad ka helaysaa commission. serviceda noocan u shaqeeya markaa dalkeena aad ay ugu yaryihiin ama kama jiraanba, laakiin waxaa jira system la yiraahdo W3 Shop kaas oo aad si affiliate marketing ugu shaqaysan karto islamarkaana lacagaada kula bixi karto SAD, EVC, Sahal iyo eDahab. macluumaad badan ku saabsan systemkaasi haddaad u baahan tahay xagga muuqaalkan ayaad ka helaysaa muuqaalkaasi. xirfadda xigta saaxiibayaal laga yaabo inaad lacag ka samayso waxa weeyaan haddii aad waqti geliso inaad noqoto freelancerka macnaheedu markaa waxa weeyaan xirfad adiga aad leedahay ayaad iibinaysaa. dad markaasi u baahan in adeeg loo qabto ayaad adeeg u qabanaysaa adigoo markaa waqtigaada uga bedelanayo lacag. sistamyo badan markaa waxaa jira qaabkan aad ugu shaqaysan karto, waxaana ka mid ah sida Fiverr iyo Upwork. intaas ayaan jeclay saaxiibayaal in la wadaago maanta. haddii aad ku cusub tahay channelkan kusoo biir, mar walba waxaan kusoo gudbiyaa muuqaalo aad u kooban oo degdeg ah islamarkaana macluumaad information badan xambaarsan, haddii aan leed madadaalo, kaftan, information, tacliin iyo waxyaabo kaloo badan.